warbixino kala gedisan ayaa ka soo baxaya kiiska loo haysto Hashim Dhaqane Mohamed saraakiisha dambe baarista ee gacanta ku haya baaritaanada ku aadan qof meedkiisii 31 bishii hore laga helay quraha laagaata ee ismaamulka Nairobi waxa ayna dhacdadan la xiriiriyeen inuu ka dambeeyo Hashim Dhaqane Mohamed waxa ay saraakiisha waxda dambe baarista dalka ay rumaysan yihiin in dilka meedka laga helay uu ka dambeeyo Hashim Dhaqane Mohamed oo ah eedeysanaha ugu muhiimsan ee dilka loo geystay habeenay gabadheedii iyo gabadh ay habaryar u ahayd oo Soomaali oo ka dhacay xaafada Parkland ee magaalada Nairobi bayaan maanta ka soo baxay waaxda dambe baarista dalka ee DCI-da ayaa lagu sheegay in eedeysanaha sidoo kale lagu tuhunsan yahay inuu dilay gabar Soomaali ah oo magaceedu lagu sheegay Deeqa Cabdinuur Qorane oo la waayay 24kii bishii hore isla markaana warbixin ku aadan maqnaanshaheedii loo gudbiyay saldhigga booliska California xaafada Islii ee magaalada Nairobi waxa bayaanka DCI-da ku cad in saraakiisha dambe baarista ay kamerada duubtay muuqaalada qarsoon ee CCTV ku dhex arkeen in 29kii bishii hore ay Deeqa wax ka iibsatay suuq laga dukaamaysto oo ku yaalo magaalada Nairobi oo lagu magacaabo King Market Supermarket baariyaasha ayaa xaqiijiyay in kadib Deeqa ay tagtay guri ku yaalo xaafada Lavington ee magaalada Nairobi halkaas oo mar kale ay kamerada CCTV qabatay iyadoo dhismahaasi galaysa dambe baariyaasha ayaa ogaaday in Deeqa Cabdinuur Qorane uu la socday Hashim Dhaqane Mohamed oo ah eedeysanaha ugu muhiimsan ee loo haysto dilal ka dhacay magaalada Nairobi wararka ayaa intaasi ku daraya in 31dii bishii hore kamerada CCTV laga dhex arkay isagoo sita laba boorsad isla markaana ka sii baxaya dhismahaasi baariyaasha ayaa tuhunsan in boorsooyinkaasi ay ku jireen meydad dhawaan laga helay quburaha laangaata ee ismaamulka Nairobi isla markaan loo malaynayo inay tahay Deeqa Cabdinuur Qorane oo la waayay bishii hore waxa haatan socda baaritaano lagu xaqiijinayo arrintan